inta badan ciyaartoyda kubadda cagta ayaa laga fishaa inay ku raaxaystaan cimrigooda ambaba ugu yaraan inay ku jiraan badbaado dakhli ilaa ay ka duqoobaan. laakiin ka waran haddii aan kuu sheego inaysan markasta xaaladdu sidaas ahayn. ciyaartoyda kubadda cagta qaarkood ayaa dhab ahaantii musallafa amba faqiira, waxayna u muuqataa mid aan macquul ahayn daawade. laakiin tani waxay dhacdaa in ka badan inta aad u malaynayso. dhab ahaantii tirakoobyadu waxay muujiyeen 40% ciyaartoyda Premier League ayaa ku dhawaaqa inay faqiireen kadib markay ka fadhiistaan ciyaaraha. sidaa darteed waxaa muuqaalkan kuugu sheegi doonaa qaar ka mid a ciyaartoyda kubadda cagta ee musallafi amba shiidka noqday kadib samaynta malaayiin dollar. aan ku bilowno Paul Marizon waxaa lagu yaqaanay waayihiisa Arsenal intii u dhaxaysay sanadii 1985 ilaa 1997. waxaan hubaa in ninkani uu kasban lahaa lacag ku filan inuu guri yeesho iyo noocyo kala duwan oo baabuura amba ugu yaraan inuu ku noolaado nolol qani ah muddo dheer. laakiin howlgabkiisii gudaha sanadii 2006 ayay timid xaqiiqdan qallafsani, taasoo ahayd inuu qabatimo khamaarka oo ku sababay inuu lumiyo malaayiin dollar. sanadii 2019 maruu ka hadlayay balwadiisa khamaarka iyo khamriga iyo siday saameynta xun ugu yeelatay noloshiisa ayuu yidhi, waxaan gaadhay heer aan gurigayga aan ku jiray aan sharad dhigto ilaa iyo markii dambe aan arkay anigoo guri kiraa degan. laakiin waxaas dhan kadib Paul Marizon hadda dib ayuu uga soo kabanayaa maadaama ay shaqo siisay Sky Sports. taasina waa wax yar markaad maqasho sheekada Asamoah Gyan. 2 Asamoah Gyan waxaan hubaa in dadkii intiisa badin aysan iloobi karin magacan. waadna xasuusataa ninkii rikoodhaha ka lumiya xulka qaranka Ghana ciyaaray wajahayeen dalka Uruguay, taasoo ka dhigi lahayd Ghana inay noqoto dalkii ugu horreeyay ee Afrikaana ee u soo baxa semifinalka koobka adduunka haddii ay bedin lahaayeen maalintaas. balse ugu yaraan ilaa iyo ay Morocco samaysay 2018 weeraryahankii hore Sunderland kaasoo lahaan jiray gawaari qaaliya kuwaasoo ahaa Royal Royce ka samaysan dahab. wuxuu sheegay inuu haysto kaliya 180 pound oo ku jira akoonkiisa bankiga, aanuna awoodi karin inuu biilo reerkiisa. aad ay u muruga badnayd in laga maqlo arrintan. ninka Spencer 227,000 oo pound toddobaadkiiba Shanghai SPG, laakiin hadda howlgabkii ayaa yimid lacagtina way ka qalashay. 3 Eric Dejemba qaybta ugu caansan xirfadiisa waxay ahayd markii uu soo ciyaaray kooxda Manchester United. ciyaaryahankii hore xulka qaranka Cameroon ayaa kasoo garab ciyaaray ciyaartoy waaweyn sida Cristiano Ronaldo iyo Ryan Giggs. waqtigiisa United wuxuuna waayihiisa kusoo gabagabeeyay waqti gaaban oo la qaatay naadiga heerka shanaada Faransiiska ee Chad Bryant. hubaal inaad ka filan lahayd xaddigu soo ciyaaray kooxaha sare sida Manchester United iyo kooxaha dhexe ee Yurub inuu ugu yaraan haysto lacag ku filan inuu ku noolaado nolol wanaagsan. laakiin 4 sano kadib oo kaliya markii uu ka tagay Aston Villa wuxuu ku dhawaaqay inuu musallafay amba faqiiray oo ay lacagtii ka dhamaatay. wuxuuna ku biiray Indian Super League Cup kadibna wuxuu ka ciyaaray horyaalka heerka shanaada dalka Faransiiska si uu halkaa ugu fadhiisto. 4 Keith Gillespie waa ciyaaryahan kale oo hore ugu soo ciyaaray kooxda Manchester United. Gillespie wuxuu lahaa xirfad ciyaareed oo si weyn u guuleysatay isagoo garab uga soo ciyaaray kooxaha Manchester United iyo Newcastle United. wuxuu ku hogaamiyay in Newcastle United ay u soo baxaan Champions League, wuxuuna xubin muhiim ka ahaa xulkii qaranka waqooyiga Ireland. si kasta ha ahaatee 2010 markii ay da'diisu maraysay 35 jir wuxuu ku dhawaaqay inuu faqiiray gabi ahaanba oo uu kacay. sida muuqatay Keith wuxuu dhibano kale u ahaa khamaarka, wuxuuna ku lumiyay ilaa iyo 7 milyan oo pound khamaarka sanadiisii ugu dambeeyay xirfadiisa ciyaareed. fikradan khamaarka ayuuna isidhi maadaama aad dhawaan ka fadhiisanaysa ciyaaraha lacag ku hel badan, laakiin sida caadiga isaga ayay lacagtii ka khasaarisay. 5 Celestin Babayaro waxaa inta badan xirfadiisa uu ku qaatay daafaca bidix ee kooxda Chelsea. wuxuu ahaa xidig weyn oo qayb muhiim ka ahaa kooxdii soo koreysay ee Chelsea. 2005 wuxuu u wareegay kooxda Newcastle kadib markuu waayay booskiisa kooxda. sababtuna waxay ahayd joogitaanka xidiga kartida badan Wayne Bridge. 3 sano ayuu ku qaatay Newcastle ka hor inta uusan u dhaqaaqin kooxda MLS Galaxy. halkaas ayuuna ku qaatay 3 bilood oo si rasmi ah uga fadhiistay ciyaaraha sanadii 2010. laakiin hal sano kadib Nigeriankan ayaa kacay, lamana yaqaan sababta ka dambeysay. laakiin waxay u eg tahay in Celestin Babayaro uusan si fiican u maamulin xoolihiisa. laga yaabo inay ahayd qabatinka khamaarka amba kaliya xoogaa maalgashiya oo uu ku guuldaraystay. qiyaasi kara waxa ku dhacay ninkan daawade.
6 Ronaldinho waxaan hubaa in magacan aad maqashay marar badan. waxaan la jeedaa ninkan ayaa ku guuleystay Ballon d'Or-ka sanadii 2005 wuxuu ahaa qayb ka mid ah kooxdii Barcelona ee aadka u xamaasada badanayd inkastoo sanado kale oo wacan ay ugu dambeeyeen markii uu dhaqaaqay Milan 2008 wuxuu wali muujinayay calaamooyinkiisa wacnaa kartida lahaa sanado uu ciyaaray labadaas kooxood ee Barcelona iyo Milan. Ronaldinho hubaal inuu urursaday lacag badan oo ahayd mid laga arkayay qaab nololeedkiisa. wuxuu lahaa baabuur qaaliya, guryo waaweyn iyo xaflado waaweyn. xafladahaas ayaana ugu dambeyntii ahaa kuwii qaab nololeedkiisa u horseeday inuu faqiiro. 2018 waxaa la sheegay in Ronaldinho uu faqiiray ama musallafay inkastoo ay jirtay deyn gaadhaysa in ka badan 1.7 milyan oo pound oo lagu lahaa Ronaldinho oo ahayd ganaax dhisme uu si sharci darro uga dhistay waddanka Brazil. inkastoo uu lacagtaas si amaahday haddana uu bixin waayay. taasina waxay keentay in maxkamadda la soo taago markaa kadibna loo qabsado arrimo baasaboor. 2020 Ronaldinho ayaa mar kale dhibaato kala kulmay arrinka dhinaca sharciga. markan ayaana lagu xidhay Uruguay maadaama uu dalka kusoo galay dukumentiyo been abuura iyadoo markii horeba lagu yaqaanay arrimaha dhaqaale xumida. maantana guuleystay hore Ballon d'Or-ka ayaa weli la halgamaya bixinta deymihii uu galay. 7 Diego Maradona waxaan dhammaanteenba ognahay in Maradona uu ahaa nin dhaliya muran badan wuxuuna ahaa boqorka xirfadda gooldhalinta. sidoo kale wuxuu lahaa qabatinka xashiishka dagaalka garoonka dhexdiisa. Maradona uu ka duwanaa ciyaartoyda kale ku jira liistigeenan kuma dhawaaqin inuu musallafay amba faqiiray balse waxaa lagu yeeshay cashuur ka badan 37 milyan oo euro waayihiisi Napoli iyo Talyaaniga ilaa iyo markii dambe dowladda Talyaanigu ay lacagta u sheegatay sanadii 2009 balse Maradona oo ilaalinaya sharaftiisa ayaa bixiyay $42,000 2 saacadood oo rool laga soo lahaa iyo 2 dhagadhagood oo ka mid ahaa dhagihii dahabiga ee uu lahaa sidoo iskaga nadiifiyay deyntaas. 8 David James wuxuu ku qaatay xirfadiisa goolahaya ahaan isagoo u soo ciyaaray kooxaha ugu waaweyn sida Liverpool, Manchester City, Aston Villa, West Ham iyo Bournemouth. wuxuuna saftay 800 oo kulan xirfadiisa naadiyada. sidoo kale 53 kulan ayuu saftay xulka qaranka England. xirfadiisa ciyaareedna wuxuu ku guuleystay FA Cup iyo League Cup. si kasta ha ahaatee kadib markii uu ka fadhiistay ciyaaraha sanadii 2014 James laftigiisa ayaa ku dhawaaqay inuu musallafay ama faqiiray inkastoo uu helay lacag ka badan 20 milyan oo gini intii uu ciyaaray 25 sano xirfadiisa ciyaareed. haddana James waa uu faqiiray. dhibaatooyinkuna waxay bilowdeen kadib markii uu sameeyay furniin 2005 taasoo keentay inuu bixiyo deymo aad u badan ilaa uu markii dambe faqiiray. James wuxuu bilaabay inuu iibiyo garamaantiisa saxina si uu garaan uga helo dakhli amba lacag. funaanadiisa uu xidhnaa 2002 markii ay garaacayeen Argentine koobka adduunka waxaa lagu iibiyay 627 pound halka garankiisa goolhaya Liverpool ee ololihiisa sanadii 1995 lagu iibiyay in ku dhow 160 pound. sidoo kale garankiisa nambarka koowaad ee kooxda Bournemouth ee James uu xidhnaa sanadii 2008 waxaa lagu iibiyay 480 pound. waxaa jira shay kale oo isagana lagu iibiyo ku dhawaad 100 pound wuxuuna ahaa baaskiil qadiimiya oo isticmaali jiray xilli hore. 9 Lee Henry wuxuu ka mid ahaa da'yartii ka iftiimisay dalka Ingiriiska dabayaaqadii 90-meeyadii. Henry ayaa helaya ku dhawaad 30,000 oo euro toddobaadkiiba intii uu ciyaarayay kooxda Aston Villa heerkiisa ugu sarreeya xirfadiisa. 11 sano oo uu joogay naadiga Aston Villa wuxuu u saftay 251 jeer wuxuuna dhaliyay 27 gool. wuxuuna sidoo kale ku hogaamiyay Aston Villa League Cup-ka 2 jeer. December 27 sanadii 2012 Henry ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu musallafay ama faqiiray wuxuuna waayay ku dhawaad 10 milyan oo geni oo kaga luntay maalgashi dhisme oo ka khasaaray iyo qaab nololeedkiisa qaaliga ahaa oo u sii horseeday inay xaaladdu ka sii darto. dhibaatooyinkiisa isbiirsaday Henry wuxuu isku dayay inuu isdilo 2 jeer laakiin si uun u badbaaday. furniinkiisina wuxuu ahaa qodob kale oo gacan weyn ka geystay dhaqaale daradiisa. maanta Lee Henry wuxuu u shaqeeyaa Sky Sports waana uu ka soo kabanayaa ugu yaraan. dhanka kale ciyaartoyda kubadda cagta waa kuwo ka mid ah kuwa ugu taajirsan adduunka laakiin marka uu yimaado howlgabku lacagtu inta badan way ka ingegtaa. waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii muuqaalkeena daawade. ha iloobin inaad muuqaalkan like saarto sidoo kalena ku soo bir kanaalkeena oo subscribe dhe intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaal la mid ah. sidaas iyo maca salaama.
في أمان الله.